ma isweydiisay sababta qof jaamacad ka soo baxay sannado badan dadaalay shahaado gacanta ku sita uu haddana shaqo la'aan u yahay? waxaana loo sheegay in waxbarashadu tahay jidka keliya ee guusha, in shahaadadu tahay fursadda albaab kasta. laakiin marka ardaygu ku safro waddada aadka u dheer, isla markaana isagoo faraxsan soo qaato shahaadada, wuxuu cagta saaraa suuqa shaqooyinka. goortaas ayuu ku baraarugaa in furaha la soo siiyey uusan furayn albaabadii loo ballanqaaday. dhibaatadu ma aha in dhallinyaradu dadaalyari hayso. dhibaatadu waa in tirada shahaadooyinka la soo saaro ay ka badan tahay fursadaha shaqo ee jira, isla markaana aan loo diyaarin ardayga xaqiiqada ka jirta suuqa shaqada. marka rajo la dhiso oo xaqiiqa adag ku burburto, halkaas ayay ka bilaabataa jahwareerka jiil dhan.